Soo dhawaada, waxa aan idinla wadaagi doonaa 8 talo oo aad u qiimo badan, kuwaas oo uu mufakirka weyn ee Soomaaliyeed Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir dhalinyarada iyo guud ahaan bulshada kula taliyay. Inta aynaan bilaabin ka horna, haddii aad kanaalka ku cusub tahay, fadlan rukumo si barnaamijyada cusub ay kuu soo gaaraan. Nolow adiga oo sharaf leh oo aan madaxaagu foorarin, isla markaana xagga hore eegaya. Dhibaatooyinka ha ka hadlin adiga oo aan baarin waxa sababay iyo natiijooyinkooda, waxana aad raadisaa xalalka, kadibna xalalkaas dadka u soo bandhig. Hana ka dhigin caqligaaga mid ay fikradaha dilaaga ahi ku kaydsan yihiin. Dadka dhexdooda waxa aad noqotaa nin rag ah, ragga dhexdoodana waxa aad noqotaa libaax, libaaxyada dhexdoodana buur noqo. Hana noqon mid dadku wax kasta oo ay yiraahdaan ku go'a. Sheeg waxa aad aaminsan tahay, balse si xigmad leh u sheeg. Maslaxad adduunyo iyo dadka awgoodna mabaadi'daada ha uga tanaasulin, balse mabaadi'daada dadka u soo bandhig adiga oo u dhex marinaya barnaamijyo iyo adeegyo waxtar u leh. Maxaa yeelay fikradaha aan nolosha la falgelini waa ay dhintaan. Arrimaha hoose iyo fikradaha aan qotada lahayn midkoodna ha la noolaan, amaba ha la noolaan kuwa ka taga mabaadi'dooda. Adigu waaqica la noolow, laakiinse waa in aad ku hubaysnaataa fikrado waaweyn. Ka taxadar oo ha ku dhicin ciyaaraha siyaasiga ah ee cadowyada mashaariicdu ay qorsheeyaan. Sida oo kalena ha ka walwalaacin in aad fikrado cusub curisid, maxaa yeelay fikradda ayaa abuurta jiilka fariinta qaadaya. Nolow adiga oo yididiilo iyo rajo qaba, waxaana aad noqotaa mid rajo badan ay ka buuxdo. Oo ogow ummaddu kolka ay rajada iyo yididiilada weydo in ay bilaa mustaqbal noqoto. Waxaana aad dadka ku dhex fidisaa rajada iyo yididiilada, oo bar in aanay ku dhicin shabaqa dilaaga ah ee quusta. Aqoonta baro, buugaagtana baadh oo ahow mid maktabadaha booqda. Buugaagta dhexdooda ku noolow, kana dood caalamka afkaarta adiga oo mufakiriinta u sii dhex maraya. Qaadana sahay cilmiyeed. Cilmigu inaga agteena waa kitaabka, sunnada, fiqiga, fikirka, aqoonta iyo dhaxalkii hore. Ha isku dhex tuurin dagaalka xagga fiqiga ah ee dadka u dhexeeya, maxaa yeelay fiqigu waa fahamkii ay culimadu diinta Ilaahay fahmeen. Fiqigu ma aha sida ay dadka qaarkood moodayaan, ee waa diinta Ilaahay. Qofna yaanu kugu qancin in uu Imaam Shaafici diinta ka fahamsanaan badnaa, Ibnu Xambal, Ibnu Xasamna ka faham yaraa, Ibnu Taymiya, Cizi bin Cabdisalaamna aanu ka ilaalin yarayn, Qardaawi, Qazaalina aanu uga aqoon badnayn, Ibnu Cusaymiin. Dhammaantoodba diinta Ilaahay ayaa ay barteen oo ay axkaam ka soo dhex saareen, isla markaana madaaris fikradeed ka aasaaseen. Midkoodna adigu ha ka fogaan, maxaa yeelay dhammaantood waa cabqariyiin, balse nebiye ma aha. Ha ka aqbalin dadka la nool fikradihii hore in ay kugu qanciyaan in ururadu ay bidco yihiin, isla markaana khidadejintu ay tahay fikrad reer galbeed. Haddii aad aqbashidna, waxa aad sabankan ku noolaanaysaa xaalad fikir iyo nidaam la'aan ah, waxaana aad noqon doontaa mid aan wax raad ah ka tegin. Maxaa yeelay waa zaban aan shaqada iska dabiiciga ah iyo midka qofka ah toona aanay meel mar noqon.